dhacdadii 14 Oktoobar ka dhacday isku Soobe waxaan leenahay intii ku dhimatay ee gacanta ka xaq dahreed dishay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha daaweeyo waxaan uga mahadnaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba iyo saaxiibada Soomaaliyeedba sidii wanaagsanay ee looga gurmaday weer casbaad xirateen waa baroor diiqdeen lacag baa ururiseen dhaqaatiir baa soo dirteen waa gurmateen dareenkiina muujiseen waa mahadsantihiin waana waajib leeyahay lahaa meel kasta oo Soomaaliya joogtana saasay samaysay haday joogto Soomaaliya haday joogto gobolada dariska haday qurbad joogta tahay waa waxa Soomaalinimadu tahay waa ummadnimada dareenka isku keenay kala weeye waxaan rajaynaynaa hawshaasi in ay ka dhalato wado ay uga gudubno dadkan maalinba cadka ina boorsanay dadka waxaa samaynaya wadada inaga ka mid ah waa caruurteennii wayna ku dhexnool yihiin waynala joogaan innaga gabaad u ah waxaan rajaynaynaa maanta in ay ka soo baxaan meesha ay ku jiraan intaa ka bacdi waxaan jeclahay inaan dhaho hambabyo iyo bogaadin u diro madaxweynaha la calaamad saarayo ee dowlad goboleedka madaxweynayaal dadkiina ay soo doortay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada la hadlay iyaga ayaa idin la xisaabtamay iyaga ayaa u tihiin muraayada aad isku eegaysaan iyaga kaliya ayaana idin heli karaa laakiin waxa loo baahan yahay in hawsha wada jirka oo Soomaalidu ay leedahay wada jir ahaan looga shaqeeyo إنك سومالي عقل جلها يتقدر ميوحي رج وضيو ولارو وحكدا مواي والوالكو هكاس